بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن وناكسن أخيارته وديجا دعوانيسا ملك العالم كشوكتان كسر وهذا ورركي عالم كاكو ودي جودن بي أود هذا هني هذا لم يدعت كدعوتان بيجكن والورات كنتو صاص عده دو بوين إدمو معلومات كاتكم مغلطان تان وحكم ذا ciidamada Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran oo sheegay inay duqeyn ku burburiyeen xarunta xogta ee loo yaqaan Data Center oo ay leedahay shirkadda weyn ee Amazon Alawine xogtaas oo faahfaahsan intaan ku soo gudbin fadlan muuqaalkan qaba oo leega saar oo iska share garay aynu ku bilownay saaxiibayaal ciidamada ilaalada kacaanka Iran ee Islaamiga ee loo yaqaan ARG ayaa ku dhawaaqay in ay burburiyeen xarun weyn oo xogta lagu aruurin jiray oo ay leedahay shirkadda Amazon oo loo yaqaan Data Center oo ay sheegeen in ay leedahay shirkadda Amazon taas oo ku taala dalka Bahrain sheegashadan ayaa imaanaysa iyadoo xiisadda Mareykanka iyo Iran u dhaxaysa ay sii xoogeysanayso isla markaana gobolka bariga dhexe uu wajahayo xaalado amni oo aad u cakiran bayaankan ay soo saareen ARG ayaa lagu sheegay in weerarku uu qayb ka ahaa mowjadihii 27 ee howlgalka lagu magac daray Nasri 2 taas oo ay ku tilmaameen in uu ahaa howlgal lagu bartilmaameedsaday weeraro hore oo hadda ka hor lagu qaaday xarunta Amazon oo la dhameystirayay sawirka u dhigeen ciidanka ayaa sidoo kale waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen qaybihii ugu dambeeyay ee xarunta isla markaana ay gabi ahaanba burburiyeen dhismaha xarunta Amazon andho saaxiibayaal sida lagu sheegay bayaan ay soo saareen oo howlgal laga fuliyay weerar qorsheysan oo lagu beegsaday baa lagu yiri kaabayaasha Iran ay sheegtay inay ku eedeysay inay taageero farsamo iyo xogo u aruuriyaan una baahiyaan ciidamada dalkaas Mareykanka iyo xulafada gobolka dhexe ee ARG ayaa sidoo kale ma aysan soo bandhigin cadeymo muuqda oo xaqiijinaya heerka burburka ay sheeganayaan islaamiyiinta Iran ARG ayaa hore u sheegtay 21 Luulyo ay weerartay isla markaana xogta shirkadaas iyada oo sheegtay inay dhowr gantaal oo nooc la yaqaan cruise missileska ay ku dhufatay waxayna isla markaa ku sheegeen ama ay ku tilmaameen xarunta Amazon inay tahay goob muhiim u ah kaabayaasha xogta Mareykanka ee uu ku leeyahay bariga dhexe waa sida ay warka ay u dhigayaan saaxiibayaal wax xaqiijinaya taas oo ciidamada kacaanka Iran ay sheegeen ilaa imika ma jiraan laakiin wuxuu ku taala xaruntani Bahrain markasta Iran suurtagal ayaa ah inay markasta ay duqeyn jirtay oo iyaga washamsigoodu Bahrain iyo Kuwait iyo washamsiga Iran waa mid iskaga diyaaro markasta iyagu ay bartilmaameed ay u yihiin dhacdo ka soo Mareykanku halkaas uu ka geysto bal waxyaali dambe ka soo cusmoonaad iyo xaruntan hadii ay islaamiyiintan Iran ay soo sheegaan wixii ka dambeeyna muuqaalada kale ay ku daawan doontaan wixii ka soo baxa oo run ah ama been ah sheegasho ay beenayso Amazon wali lama arkin muuqaalada dambe ay ku daawan doontaan fadlan muuqaalkan laga saaro shirkadda